sida aad la wada socotaan 29 November waxa aan wada tashi ugu yeernay safiirkeennii inoo joogay Kenya sidoo kalena waxaan u sheegnay safiirka Kenya oo fadhiya Soomaaliya inuu la tashi ugu laabto dalkiisii waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheegno sababtan uu kaliftay tallaabada diblomaasiyadeed ee aanu qaadnay sidaan hore u soo sheegay dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku shaqaysaa dareenka iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed waxaanay u taagan tahay difaaca iyo ilaalinta madaxbannaanida dalka sidoo kale waxay dhowraysaa xeerarka caalamiga ah iyo wada noolaanshaha shucuubta caalamka Kenya waxaanu haynaa ixtiraam qadarin derisnimo iyo inaanu ahaano dan wadaag labadaba ku wada nool mutual interest dhinacayaga markasta waanu dhowrnaa arrimahaas asaasiga laakiin Kenya kama muuqato derisnimo wanaag waxa ka muuqda damac dama socda riyo maalmeed aan munaasib ahayn iyo qarab ku dhisan dhalanteed oo ay ku hunguraynayso dhulka iyo badda Soomaaliya tusaale ahaan Kenya waxaanu in badan kala shaqaynaynay arrimaha amniga ee labada dal waxaanu qaadanay falsafad ah cadowga dariskaagu waa cadowgaaga laakiin Kenya waxa ay dooratay oo jeclaatay inay u dhaqanto sida rajiimkii Tigreega ee faragelinta badnaa kaas oo halka uu ku dambeeyay aynu maanta ka wada warqab sidoo kale ciidamada Kenya ee Kenyan Defence Force kaleerada KDF waxay ka mid yihiin ciidamada nabad ilaalinta Afrika ee Soomaaliya AMISOM ciidamadaasi waxay ku joogaan ogolaanshaha dawladda Soomaaliya iyo awoodsiinta Security Council ka ama golaha ammaanka qaramada midoobay dhinacayaga ciidamadaas sida ciidamada kale AMISOM waxaanu la leenahay wada shaqayn buuxda laakiin dhinaca Kenya taasi kama jirto marar dhowra bay KDF ama Kenya Defence Force ka baxeen goobo lagu ogaa iyagoo aan kala tashan dawladda Soomaaliya iyo hoggaanka sare AMISOM waliba haddaan arrintaa faahfaahin idinka siiyo waxay mar dhexdaas ka baxeen Kenya Defence Force-ku laba goobood oo aad u istiraatiiji ah oo kala ah faxfaxdhuun iyo busaar iyagoo aan cidna ka tala gelin bixistaas talaalaaneed yaanay cidna u sheegin inay baxayaan shacabka Soomaaliyeed ku nool gobolka Gado dib badan baa ka soo gaaray intaasoo kaliya ma aha dib sidoo kale Kenya waxay faragelin joogto ah ku haysaa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo ay madaxdiisa ku qasabto arrimo ka soo horjeeda oo ka dhan ah danta iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed wada shaqayntii Kenya si wadaaye duulimaadyada caalamiga ah ee Kenya ee hawadeena mara inta badan waxa ay isticmaalaan hawada Soomaaliya Somalia Airspace si hufan oo hagarlaana waanu ugala shaqaynaa isticmaalka hawadeeda laakiin dawladda Kenya waxay safarka ku dhibaan shacabka Soomaaliyeed ee gobolada ka safra oo ay ku khasbaan baaris dheeraad ah iyo inay sanduuq ku soo maraan wajeer dhinaca shaqo abuurka Soomaaliya waxa ka shaqeeya kumanaan muwaadin oo u dhashay waddanka Kenya oo si sharaf iyo karaamo leh uga shaqeeya dalkeena waanu ilaalinaa oo soo dhaweynaa oo dhowrnaa laakiin dawladoodu ma danayso taas bedelkeeda Kenya waxa ay martigelisaa dad aan ka shaqaynayn danta Soomaaliya markasta dhinaca ganacsiga Soomaaliya waxay suuq weyn u tahay warshadaha iyo beeraha iyo wax soo saarka Kenya laakiin Kenya ma ogola in badeeco uga tagto dhinaca Soomaaliya iska daa ganacsi xuduudda ka gudbay xilli kasta waxa ay burburiyaan ganacsiga shacabka Soomaaliyeed sida taawarada iyo qalabka isgaarsiinta ee ay ku shaqeeyaan shirkadaha waaweyn ee isgaarsiinta Hormuud iyo Somtel dhibaato kale oo shacabna inta badan oo ay ciidamada Kenya Defence Force ku geystaana oo gobolka Gado iyo gobolka Jubbada Hoose iyo gobolka Jubbada Dhexe ka geystaana uu soo gaaray intaas oo dhan oo jirta intii Soomaaliya ka soo kabatay ay soo kabatay marna ma dhicin in hal siyaasi oo mucaarad ku ah dawladnimada Kenya laga soo abaabulo Muqdisho iyo Soomaaliya si loogu khalkhal galiyo dariska laakiin taas bedelkeeda Nairobi waxay noqotay meesha lagaga soo duulo Soomaaliya lagaga noqdo heshiisyada lagu gaaro Soomaaliya gudaheeda
lagagana soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee la rabo in lagu carqaladeeyo dawladnimada dhismaysa ee dalkeena. haddaba annagoo ka duulayna rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ayaanu si aanu dareenka ula wadaagno danjiraheenna la tashi ugu yeernay safiirka inoo fadhiya Nairobi 29 bisha November ee hadda dhamaatay. arrintan inaan u yeerno danjiraheenna miyaanu ku degdegnay mise waanu la soo daahnay? maya maanu ku degdegnay oo waxa nooga horreeyay dawladda Kenya oo 16 February 2019 sanadkii hore dib ugu yeeratay safiirkeeda, laakiin dawladda Soomaaliya markasta waxay muujinaysay bisayl iyo diblomaasiyad qaangaar ah. okay, haddaba miyaanu la soo daahnay? maya lamaanu soo daahin oo diblomaasiyadda ayaa ku dhisan saying the right things at the right time, inaad waqtiga saxda ah go'aanka saxda ah qaadato. sidaas baanu ula sugaynay waqtiga ku habboon. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wakiilaha alwikaaw aakhir alcilaaj, dab in la isku dhajiyaa waa dawada halka ugu dambaysa. sidoo kale abwaankii saahil qamaan 100 sano ka hor waa kii inoo sheegay in diblomaasiyaddu tahay rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi mase inaanu nahay oo tolimo meerta noo tahay. ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho. 3 magacalle xaajada layma marasiyo. qofka waa loo dulqaataa, dawladda waa loo dulqaataa, diblomaasiyadda waa loo dulqaataa, laakiin markay timaado waqtigeeda waa laga jawaabaa. saasaan ugu yeernay safiirka inoo fadhiya Kenya. gabagabadii shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay ogaadaan in Soomaaliya aanay maanta ahayn Soomaaliyadii burbursanay ee ay tahay dawlad madax bannaan oo cod ku leh fagaarayaasha caalamka. sidoo kalena waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa inay dawladoodu u taagan tahay midnimo, wadaniyad, madax bannaani, qaran, dawlad wanaag iyo ilaalinta sharafta dalka. ma aqbalayno inaanu dib u laabanno. ma aqbalayno inaanu hal dhibic ka tanaasulno awoodda iyo madax bannaanida qarameed ee Soomaaliya sida uu nafarayo qodobka 1 ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya faqradiisa 3 iyo sidoo kale qodobka 2 faqradiisa 1 iyo faqradiisa 7 ee axdiga qaramada midoobay oo adkeynaya madax bannaanida iyo in sharci darro ay tahay in la farageliyo dal xor. ugu dambayn siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dawladda Soomaaliya dawladda Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay ka waantoobaan inay danta dalkooda ka hormariyaan danta dal kale. xilku waa maalmo, xilku waa meerto, xilku waa maalmo kooban, laakiin qarannimadu waa wax weyn. annagu maanta waxaanu siyaasaddan ku dhisan kalsoonida iyo sarreynta magaceenna ugu shaqaynaynaa si jiilka soo socda aanay ugu noolaan qaranjab iyo gacmo hoorsi ee ay ugu noolaadaan qab iyo qarannimo. siyaasi kasta oo Soomaali ahna sidaas oo kale ayaanu ku boorinay.